dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen magaalo xeebeedka Baraawo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. al-shabaab ayaa dhowr jiha ka soo weerartay degmadaasi iyagoona gudaha u galay sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. dagaalyahanada al-shabaab ayaa meelaha ay ka weerareen Baraawo ka mid ahayd dhanka xeebta iyagoona gaaray ilaa saldhigga magaalada agagaarkiisa. gudoomiyaha degmada Baraawo Cumar Madoobe ayaa warbaahinta u sheegay in ay iska caabiyeen al-shabaab oo xalay weerar ku soo qaaday iyagoona tilmaamay in haatan ay ku daba joogaan. waxa uu sheegay in isaga qudhiisa uu ka mid ahaa ciidankii xalay la dagaalamay waxa uuna xusay inay khasaaro u geysteen. ciidamada AMISOM ayaa saldhig u ah duleedka magaalada Baraawe iyo halka laga galo waxaana gudaha magaaladaasi ku sugan ciidamada dawladda. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in la arkay meedadka rag la sheegay inay ka mid yihiin al-shabaab oo xalay weerar ku soo qaaday magaalada Baraawe sidaasna waxa xaqiijiyay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo halkaasi ku sugan. قدر عبد علي تلفزيون كهون كيبل مقالة مقدشو.